إلى كلا حكتها واحد عشيق الفاضل قبر رنتي مركي أي سؤاشا شليجيسي دباتي مرغب بدن أي كم وقتي حقيقة الله أعلم marka hadaan ku soo koobo waxay leedahay mid ayaan Afrika ka keenay gabar ayaan ugu dhalay halkaan nimid hadana ilmo kale ayaan u dhalay halkan markuu dinkii wuxuu noqday mashaqayste markuu mashaqayste noqday wax walba ay ugu sameeyo dhibaato fara badan ayuu ii geystay qalbigu iga cunay waxay leedahay timihii ayaan iska xiiray dharkii ayaan jeexjeexay isbitaalan galay waxaan ku yiri war isbitaalka igu waa u diiday ayay hadana leedahay kadib waa uu isirsiray oo wuxuu yiri bal ayuu tan noo gal waxbaan sameeynaa ganacsi iyo wax oo waliba qofka hore naga dhig kadibna lacagtii ayuu la gooyay ayay leedahay kadibna waa uu soo laabtay hadana dhibaatooyin aad u fara badan ayuu ii geystay waxaan marka hore rabaa in la ii duceeyo kadibna maxaad igula talinaysaa ayay leedahay sheekhuna alfaadil falyatafadal mashkuuran wamaajuuran الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم horta inaad sabarto waan ku dardaarmayaa inaad timahaaga iska xiirtana hadduusan cudur iyo xanuun uusan kuu geynin ama aynan kugu qasbin inaad timahaaga quruxda badan daysato umuurtaada iyo arrintaadana aad ilaahay u tala saarato tabaaraka wa tacaala in badanna aad salaatuleyl intaad tukato aad gacmaha kor u taagato ilaahayna aad xaajadaada iyo dantaada u bandhigato horta waa talada koobaadeen ku siinayo waxaan talada halkaa oga bilaabay waxaa weeye ninka addoon ooma tihide ilaahay baad addoon u tahay tabaaraka wa tacaala waxaan talada halkaa oga bilaabaya waxaa weeye ninka asaga ooma nohide ilaahay baad u nooshay tabaaraka wa tacaala waxaan talada halkaa oga bilaabaya waxaa weeye waddamadan marka la imaaday qofku intuu xanuunka qayb asagu inuu isku rido oo qayb kamida ka qayb qaato xanuunka ayaa dhacda kadibna marka u dambaysa intii isbitaallo la dhigo kadibna irbado lagu duro inana waddankeeni dad waalan iyo dad miyir qabaa joogi jiray dadka waalanna waa la aqoon jirayo waa kuwii dhagxaanta wadan jiray ee meelaha la tuurtuuriyay jiray qaybna way miyir qabi jireen halkani dadka meeshan jooga wax miyir qabana waa ku yar yahay wax caafimaad qabana waa ku yar yahay inta waxa irbad baa lagu duraa qofkii asaguna caafimaad qabin buu aan xanuunsan ayuu haddana habbi iska yahay oo iska soconayaayo laga yaabo dharkiisa uu qabaa haddana waa waalan yahay halkaas intaada gaarin waxa weeye waa inaad isdaba qabataayo gabdhaha si caama waxaan u dhihi lahaa oo si gooni anigoo su'aasha gabadhani jawaab ahaan uga faa'iideysanaya war gabdho waxaad u nooshihiin waa Allah iyo cibaado tabaaraka wa tacaala rabbi baa idin abuuray ninkan adigoo weyn baad u timid haddaad isqoontaan ama aad isqanjuruufataan ama aad isqaniintaan haddii la kala baxo si sharafa lagu kala baxo waa wanaag haddiise lagu kala bixi waayo ha israacinina ragga nimankan ha israacinina oo ha u aakhira seegina oo ha u adduunya seegina noqda dad Allah u nool dartii tabaaraka wa tacaala oo cibaadada Allah u nool tabaaraka wa tacaala oo intaad dhaxda xidhato xijaabkaaga xidhato oo dhaxda dhiisha iska dhigtay habeenna u sujuud Allah tabaaraka wa tacaala gacmahana u taaga tabaaraka wa tacaala caruurtaadana awoodaadu hadba intay dhantahay ku korso biidnillaahi tabaaraka wa tacaala arkayena muuqadin musiibo iyo dhib iyo ninkan haddaad weyda inay balaayaba kugu dhacday ma aha markaa macnaheedu wuu isa saftay waataan sheegayo dumarku waa daciif dumarku way tabar daran yihiin ninkay hadda ay intaa ka calacalaysay ayay haddana leedahay wuu isa sabtay haddana saacad dambay gabadhaa su-aal la weydiinaysaa inadee waxay ahayd hadday daacad iyo run iyo dhabayda lafteeda ay ka tahay markuu saa u galay sheegaysa inay ama dhahdo niyow banaanka iga mar ama si wanaagsan ii qab marka waxay tiri wuu isa sabtay oo ayuutan noo gal oo gacanta u horaysa aan noqono kadibna waa i khayaanay maxaad igula talin lahayd waxaan kugula talin lahaa adiga ninkaaga si wanaagsan intaad u wada hadashaan gurigiinana qaab tartiiba aad u samaysaan qaraabe iyo qoys daacad ku ana aad la tashato culummada kuu dhowna aad arrintaa u bandhigato reer in la dumiyaa inuu dhisnaadaa ka wanaagsan inta awood haddii ninkani asagoo intaasoo dhan sameeyey hadduu gurigaa dhismi karo oo noloshu ay sii socon karto 4 beri weeye nolosha ee ku dadaal ilaahayna tala saaro tabaaraka wa tacaala asagana qaabkaad oola dhaqmileed hadda kadib ha kuu caddaato oo mar kale ayaan lagu sirin waa hadday siday su-aashu u qoran tahay arrintu ay tahay wey haddii kale oo noloshu ayna socon karin
oo adiga adduuniya aakhare marka isbarbar dhigta aakharadaday khatar ku jirtaay ilaahay wuxuu leeyahay fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan wanaag in lagu wada dhaqmana waa la yaqaan in wanaag lagu kala tagana shareecadeenna ayaa noo amartay marka taladaydu waa ducayso taladaydu waa alla isku xidh taladaydu waa alla bari taladaydu waa ninkaa israacinin allaad addoon u tahay subxaanahu watacaala diintaas inaad iimaansato oo aad sabar iyo dulqaad ayada aad ka soo dhex saarato oo allaha min fawqi 7 samaawaat subxaanahu watacaala ka sarreeya maxaa la yidhahdaa inaad asaga tala saarto isu dhiibto inta ayaan kugula talin lahaa wallahu aclam walcilmu cinda allah. ما شاء الله جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيخنا الفاضل الله سبحانه وتعالى حكومة بادية مالنت خيامها سيد النبي موسى يقوم كيرهمي الله سبحانه وتعالى وقبت بادية في نوضيه فرعون الله سبحانه وتعالى جنة الله قل النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه